السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaad nagala socoteen Muqdisho official fadlan hadaad ku cusub tahay subscribe share like comment hadaad hore noola joogteen waad mahadsan tahay hadaba waa kuma barnaamijkii taxanahaano ahaaban intiisa ka sii dab maxaa la jiray ka sii wadi doona hadaba waa kuma ciyaaryahanka aan maanta noloshiisa ku soo qaadan doono waa ciyaaryahan aad wada taqaanaan oo xidigii Elman Jamhuuriyo ku ciqaabay Nuur Iraad hadaba Nuur Iraad waa qof sidee ah maadaama aad aragtay Nuur Iraad asagoo garoonka ku jiro aadna ku baratay asagoo gobol u dheelaya ama degmo u dheelayo ama naadiha ka tirsanaado oo fanaanad wato sidee jacaylka isku yihiin cuntada noocuu cunaa yaa ku soo dhiirigeliyay inuu sportiga soo galo maadaama aan ognahay inuu degmo sporti oo ka soo baxay waa kuma heesaha uu dhageysto waa kuma aktarada uu hindiga ka taageero dharka noocuu xirta cuntada noocuu cunaa Nuur Iraad cabitaankana noocuu hadaba Malyo Muqdisho noo sheegi doonto magaciisa saddexan Nuur Iraad maadaama aad aragteen asoo garoon ku jiro fanaanad wato aadan ogeyn shakhsiyadiisa wuxuu jecel yahay wuxuu xiisay uu ku soo martin karaa wad casuumi kartaa magaciisa saddexan waxa la Nuur Iraad Cabdullaahi haatan waxaan weydiin doonaa Nuur Iraad halkuu ku dhashtay halkuu ku soo barbaaray anaga maadaama aan ognahay dadka aanan ogeyn sajaanis ugu helaan ee ugu faa'iideystaan Nuur Iraad wuxuu ku dhashay degmada Hiilwaa hadaan qaldaneen suuqa xoolaha meeshaas ayuu ugu soo ababay meeshaas ayuu sportigiisa ka soo bilaabay hadaba waa kuma naadigii ugu horeeyay uu soo dheelo Nuur Cabdullaahi Nuur Iraad naadiga ugu horeeyay uu soo dheelay waxa la lahaa Al Jazeera oo markaas ka aasneed xaafadda suuqa xoolaha uu naadiga Al Jazeera soo ku jira kadib wuxuu ku biiray SS Hiro halkaas wana ka aragtay degmada Hiilwaa ayna ka soo qaadatay Nuur Cabdullaahi Nuur Iraad meeshaas ay ka soo qaadatay wuxuu soo maray Serie B hadaan qaldaneen Jamhuuriyo waxay ku ciqaabtay Elman Jamhuuriyo kadib wuxuu soo dheelay gobolka Banaadir Elman haatan wuxuu ku sugan yahay Nuur Iraad Elman maadaama uu nasiib u soo yeeshay inuu gobolkii u soo dheelo biina ka soo dheelo haatan ee uu joogo Nuur Iraad uu yahay ciyaaryahan aad mustaqbal u leh mustaqbalkiisuna yahay mustaqbal ifaaya Nuur Iraad oo ku taageersanahay mustaqbalkaagana hore u socdo ku ifan kulena hadaba Nuur Iraad yaa ku soo dhiirigeliyay inuu sportiga haatan uu kamida dhaliyay soo galo waa kuma shakhsiga ku soo dhiirigeliyay ama shakhsiyaadkii ku soo dhiirigeliyay waxa ku soo dhiirigeliyay saaxiibkiisa marna isku xaafad ay ahaayeen Abdiraxmaan Shaata waa salaameena aad salaameena Shaata production waa laakiin Shaata production haatan neerus waxaan weydiinayaa maanta Nuur Iraad hadaa ku dhaw waan casuumaya muxuu jecel yahay in aan ku casuumo mise muxuu cunaa cunto noocee ah hadaba hadaad u baahan tahay inaad Nuur Iraad casuumtid xidiga waalida ah daayirka Elman waxaad ku casuumaysaa basta macaroni no basta dheer basta macaroni ayaad ku casuumi doontaa iyo biyaha la dhaho mushakalku waa fruit la isku mixeeyay sidaan u naqaano ama la isku dardaray sidaas ayaad ku casuumaysaa Nuur Iraad haduu maanta ku soo martiyo ama aad tahay taageero Elman hadaba Nuur Iraad waa kuma saaxiibka sportiga uu ku leeyahay saaxiibka uu sportiska ku leeyahay waxa way bila cilmi wehliye bila madoobe haatan isku sugiyin isku naadiga yihiin Elman aad weyn marka ka soo gudubna shakhsiga ku soo dhiirigeliyay waa soo aragteen mise shakhsiga oo saaxiibka kale yahay sportiska marka ciyaal xaafadda leeyahay qof buu saaxiib leeyahay qof buu u dhow yahay Nuur Iraad shakhsiga xaafadda marka ciyaalka leeyahay mise ilaa haatan u dhow waa kuma markii laga soo tagay sportiga qof waliba shakhsi saaxiib la uu leeyahay qof walba bin aadan qof si qaas ah ugu dhow sirta isku qarsadaan meelayiin shakhsiga ugu dhow ee xaafadda ma ahan shakhsiga sportiga shakhsiga ugu dhow ee xaafadda Nuur Cabdullaahi Nuur Iraad waa Abdiraxmaan Kaamiro hadaba Nuur Iraad heesaha Soomaaliga sidee isku yihiin mise ma dhageysta fanaankiisa uu taageeraa Malyo Muqdisho aad isku wanaagsan yihiin markuu xaafadaha joogo mise waqtigiisa inta badan wuxuu aad u taageeraa mise uu dhageystaa Qamar Suugaani fanaankii fanaanada daqriifska jacaylka aad weyn maxaan jirnay marka laga soo tago Nuur Iraad dhanka jacaylka sidee isku yihiin Nuur Iraad jacaylka iskuma wanaagsano asagii jacaylkana dagaal baa dhaxyaala
haddaba nuur iraad jacaylka maadaama aad soo aragtay xidiga yiri jacaylka waan isku wanaagsanahay haatan nuur iraad jacaylka taqriibis baa u dhexeeyaan leeyahay waa shakhsiga barnaamijyada hore soo arkaysan waa shakhsiga dadka ka duwan soo jacaylka isku wanaagsan qaar baa ayagoo jacayl lahaynba iska dhahaayeen oo isku wanaagsannahay haddaba maadaama uu yahay nuur iraad xidig weerar waa kuma maadaama weeraradu aad ay u necab yihiin daafacyada misna ay necab yihiin daafacyada aadka u adag waa kuma daafici ugu adkaa ama daafaca uu necab yahay inuu ka hor imaado nuur iraad daafaca uu necab yahay mise kubadda ku cinqaabo waxaa waaye baanu cabdulaahi haatan inuu ku sugan yahay umaleynaa muqdisho city club isku xaafadna ay yihiin suuqa xoolaha ay kasoo wada baxeen markaa kasoo tagno ciyaaryahankee ayuu jecel yahay inuu ku daysado kubadda cagta heerka caalamiga ah mise dibadaha uu fiirsado sidaynu ognahay ciyaaryahan walba garoon soo galo wuxuu jecel yahay skills xidig kale ama xidig kale inuu ku daysado ama asaga ha dheelo ama mar kale ha soo dheelo xidiga uu nuur iraad ku daysado waa xidiga la dhaho Basic waana xidiga kooxda Bayern Munich dalka Jarmalka hadaan qaldanayn aad weyn waayo ayaga xitaa waxa laga yaabaa markay hadda ayaga dad ay ku daysanayaan birijiil ka soo baxaayo inay ayakana ay taageeri doonaan oo dhihi doonaan banooniga waxa ugu daysadaan nuur iraad baano alosh dad badan uu sheegi doonaa haddaba waa tiimamka adduunka marka la tago noo Soomaaliya tiimamka adduunka marka la tago ma naga soo horjeedaan nuur iraad misna isku tiim baan nahay ama dad uu ku tiim yahay ma jira haddaba waa kuma tiimku caalamka ka taageera nuur iraad tiimku caalamka ka taageer waa Manchester United marka laga soo tago waxa la dhahaa waa hooyada Premier League waa hooyadii Ingiriiska taniyo sidoo ugu tagay Sir Alex Ferguson macallimiinta waxaan u maleynayaa Manchester United hawada ka sii baxaysa inkastoo hadda corona uu yimid oo adduunka oo dhan loo xirxiray sportigina la joojiyay laakiin sidaynu ogeyn ciqaab bay mareysay Manchester United waana salaameena taageerayaasha Manchester United haddaba maanta oo dhan waxaynu dhex mashaaxeynaa sportigi iyo cuntooyinkii nuur iraad markii la dhaho walaal bisanaya darka ama kalar ku jecel yahay inuu ku labisto nuur iraad markuu labisanayo qof walba wuxuu leeyahay adiga madow hadaa jeceshaa qof kasta wax buu jecel yahay nuur iraad wuxuu jecel yahay inuu ku labisto dharka cadaanka ah mise kaladara cadaanka ah maadaama kalarka cadaanka la dhaho waa kalar nabada in asaguna aad u degan yahay marka laga soo tago dharka uu xirto nuur iraad aktarko ayuu taageeraa markuu xaafadihiisa joogo mise uu fiirsadaa filimada hindiga si isku yihiin Bollywoodka ma isku wanaagsan yihiin Hollywoodka ma isku wanaagsan yihiin waxay isku wanaagsan yihiin Bollywoodka Ranbir Kapoorna wuu taageeraa aad weyn haddaba uu jecel yahay nuur iraad markii la dhaho Elman inuu ka garab ciyaaro kooxda Elman markii la dhaho nuur iraad wuxuu aad u jecel yahay inuu ka garab ciyaaro Anwar Said Ali Shakunda marka laga soo tago Elman kooxaha kale uu jecel yahay qofka inuu ka garab ciyaaro mise garoonka markuu ku jiro uu ku farxo waa kuma waa xidiga suuqa xoolaha waa xidigii dekeda Cabdirasaaq Caan aad baan u salaameynaa Anwar Said Ali Shakundana sidoo kale aan u salaameynaa haddaba waxaan soo gaarnay barnaamijkii nolosha ciyaaryahanka aan maanta ku soo qaadanay nuur cabdulaahi nuur iraad kama dambaysteedii haddaba Mulyo Muqdisho maxaa kaaga baxay noloshii nuur iraad maanta shakhsi kasta oo maalin buu la bartaa nuur iraad noloshiisa amaanta meeshan ku sheekeynay horta uu ku mahadsan yahay sida quruxda badan uu la wadaagay inaan ku soo qaadano aad weyn noloshiisa inaan meeshan ku sheegno nuur iraad waa shakhsi degan aad weyn waxaan dhihi lahayn baraada keep going meel kasta oo dunida ka joogto waxaan ku dhahaynaa nolosha kuma ciisho heerka jeceshaan sports waa ka gaari doontaa hadii waa la idimo haatan sports ka soo wada ognahay waa meel ku eg qofka wax kale tuu rajayn karaa sida barnaamijka hore oo ku soo aragteen Alosh inuu siyaasadda noqdo nuur iraad ma ka duwan yahay Alosh mise Alosh meeshuu rajaynaya haatan niruusa ku sugeena sportsku muxuu ku bedelan lahaa nuur iraad warun sportigu inta ay tahay ba dheeli kartaa waana madadaalo nafta lagu madadaaliyo laakiin nuur iraad uu ka duwan yahay Ibrahim Alosh maadaama Alosh siyaasadda dalka uu qaatay laakiin nuur iraad wuxuu bartay isla faculty u dhow laakiin ganacsiga business administration laba maado xoogaa isku yarado wuxuuna rabaa inuu noqdo businessman
ama maalqabeenkeeni weyn lacag weyn oo adduunka ka tago waan kaasoo agdhawaan doonaa markaas nuur ilaad ilaahay haduuna gaarsiiye hamigaagana rabbi ha kuu rumeeyo waxaad xoogaa dheer tahay dadka qaar because of dadka qaar nafta waxay u dhiibeen isboortiga ama banooniga la garaacayo kamadaariyihii waqtiguu ku egyahay laakiin qalinku waqtina kuma eko adoo waayeelaad ku shaqaysan kartaa adoo medalaad ku shaqaysan kartaa adoo dhalinyarna waad ku shaqaysan kartaa qof walbana waad ku caawin kartaa laakiin sidaynu ognahay isboortiga Soomaaliya intaad xay tahay ugu raba maadaama isboortigeenu wali uuna sida caalamka uuna gaarin nuur iraad hamigaaga hor u soco hadaba maxaad ka leedahay maadaama uu businessman noqdo dadku waxbay sheeganayaan Muqdisho YouTube ka leh ma taagnaani aan sameeyay annagana nuur iraad markuu ganacsi noqdo agtiisa ka soo dhawaarna ma fahantay lacagta kastoo leh noo soo niyeyso waa ku tirinayna bas buka badan taa moogtahay maadaama xisaab saa'id tahay aadan xisaabi karin oo qof hantiila aad tahay ani neerus qaybta xisaabta iyo shaata qaybta xisaabta ku fadhiisanayna lacagta ku tirin doona marka waxaan ku dheelayn hoobkaaga ka dhamay iyo hamigaaga hal meel ha ahaadaan waa milyan Muqdisho iyo neerus shaxshaxleeyo idin leh barnaamijka ku xiga intaan ku kulmin doona waxaan iga tageynaa isku soo noqod dambo xiisan leh anagu caafimaad qabno iyo ninkoo caafimaad qabtiin meel kasta bye baan ilaahay salaam